حسن عبد إسماعيل والله يقانو حلبان حسن يري أما حسن فريم oo ka tirsan xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya tan iyo markii ay soo ifbaxday inuu gacan qaad ku sameeyay askari ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya oo ku sugnaa xarunta golaha shacabka waxaana xaqiijinay in xildhibaanku uu degan yahay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed gaari uu leeyahay xildhibaan kale oo ka tirsan golaha shacabka sidoo kale ka mid ah hoggaanka xisbiga himilo qaran ayaa loo qaaday gurigiisa xilli habeen ah waxaana la geeyay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ku yaala xeendabka ama agaarka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho wararka aan helnay waxay tilmaamayaan in xildhibaanka tan iyo markii ay soo ifbaxday gacan qaadkii uu ku sameeyay askariyan ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya xubna ay kala tirsanayeen golaha shacabka ee baarlamaankana ay dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ku booqaneen isbitaal la dhigay askarigaas inuu dareemay qorshayaal ay suurtagal tahay in xildhibaanku lagu beegsan karo oo amnigiisa oo halis ku jiro iyo sidoo kale inuu dareemay in la keeni karo soo qabasho ama xadgudub kale oo xildhibaanka loo geysto maadaama muuqaal oo ka soo muuqday isagoo faldambiyeed ku jira taasoo keentay inuu ka guuro gurigiisa waxaana degay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed halkaas ayuuna hadda ku sugan yahay dhowrkii habeen ee la soo dhaafay iyo maalmahana ku sugnaa mana jirto ilaa hadda hal mar oo banaanka uga baxay gurigaasi askarigan oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya waxaa la dhigay isbitaalka ciidamada booliisku leeyihiin ee la yiraahdo isbitaal Madiina waa uuna jeefaa ilaa waqtigan waxa booqday xubno ka tirsan guddiga anshaxa ee golaha shacabka ee baarlamaanka iyo sidoo kale xildhibaano kale oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan oo isugu jira aqalka sare iyo golaha shacabka laakiin waxay ahayd qaad ay galeen xildhibaanadii ka soo muuqday maalintaas fadhigii golaha shacabka ee askariga qabtay qaarna ay jir dileen ama ay gacan qaad ku sameeyeen taasoo saameyn weyn ka dhaxdhalisay baraha bulshada iyo warbaahinta sidoo kalena aad ay u kaceen dad badan oo xildhibaanka ku eedeeyay inuu gacan qaadkaasi sameeyo xildhibaan xasan yare waxa uu qirsan yahay in askarigaas oo gacan qaadka ku sameeyay ay ahayd qalad maadaama uu yahay mudana ka tirsan baarlamaanka xasaanad